kalaba uma baahni meel aan saaraba ku dhigo wixii la siiyay waxba kamaayo hotel un baa qaatay hooyo Fardowso Xaaji Cali oo muddo 20 sano ah deganeed magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkan Itoobiya waxayna ahayd hooyo xoogsato oo haysata 6 caruur ah oo ay dhashay dabka kacay guriga ay ka deganeed magaalada Addis Ababa waxa ay ku weyday 4 caruur ah oo mid kamid ah iyadu dhashay 3 kalena ay dhaleen caruur ay markaasi iyadu dhashay waqti xadirkan waxay ku sugan tahay magaalada Jigjiga kanina waa hotelka ay ka degan tahay magaalada Jigjiga horey baan u sii socon doonaa san hooyo Fardowso ula kulmay isla mar ahaantaana aan wax uga weydiiyo qadarka ku dhacay waxa igu dhacay jaydal kulul baa igu dhacay masiibo xun baa igu dhacday ilaahay baan ii keenay alxamdu shukri mahad ilaahay baan ku mahadiyaa wax kasto dhaca haday xun yihiin iyo haday fiican yihiin ba ilaahay wuxuu keenay waa alxamdu shukri mahad waxa igu dhacday shaah iyo dhuxul baan meel ku iibinayay kolka aroorta horaan caruurta ka kala intan iskuulka u dira maahan inta kale waxaan u kalahaa dhuxushaasna xirxiray shaahaas inta u horeysa kolkii laga iibsado ayaan roodhi ugu soo iibiyaa on caruurta dib ugu soo noqdaa doorki kolkaas ay quraacdaan ka baxaa haddana waan u soo yar shaqeeyaa haddana qadad iyo ku soo kariyay meherada ayaan haddana dib ula soo cararaa saadaan marka aan casirkii uga baxay salaada casir kolkaan guriga ku dukaday kadinka markaan saa uga baxay saacad maan sii soconba daqiiqado aqalkayga waxaan gadaalkayga ka maqlay miina inay qaraxda aad moodaysid bawdi ka yeertay saa haddaan eega xarkii baaba dog saaran layrkii yaa saa u holcayaba layrkii jiingadii yaa saa u holcaysa xarkii waa weynaa layrka ku soo daatay qorayii weynaa ku soo dhacay layrkun baa saa isu qabsaday kolkaan iri waan galayaa caruurta qayladoodii aan maqlane waxa ka soo booday gabadha weyn oo holcaysa dharka ku holcaya ayaa ka soo baxday inanka waxba ma qabin laakiin shoog buu xoogaa iga qaaday sidoo inanku u baxay ee maanta oo ay tahay ayaan ka helay wajaale qarkan soke ee Itoobiya inta Itoobiya daafeeda ayaa kolba gaari uu sii raacay oo kolba meel baa lagu sheegay dhacdadaas imsa caruurad ku weeyay waxaan ku waayay 4 caruur ayaan ku waayay 18 jirkaas ugu weynaa baaraleyska gabadha ii sheegeen 15 sano jirto ee korkeedii ku holacday oo ayadoo wada holacdo feereedisa u kala qalacaan dhagiina ku beeshay ay hadda ii joogto sanka nafta kaga jirto alxamdulillah sibasiyay dhaanta taa iyo inankaas ay soo badbaaday dawladda deegaanka uu soo gurmaday dawladda Itoobiya ee federaalka uu soo gurmadeen caruurtii aas qaran baa loo sameeyay waa layla aasay shacabka Soomaalidana waxay ii gureen lacag muddada 5 bilood ah in halkeed ku sugnay dhakhtar baan ku jirnay gabadha nawaan daweynay jirka oo la albaabka ka soo baxday inankaasna waan raadinay anigana dhakhtar baan ku jiray annaga biisi isku ahaynba xanuunkeennagi maanta magaalada Jigjiga ayaa joogtaa ujeedada magaalada Jigjiga u timid maxay tahay ujeedada magaalada Jigjiga u imid waxay tahay ilmahayga oo laygu sheegay xadka inuu ka sii talaabayo oo soo qabsaday alxamdulillah rabbil caalamiin anoo wadankayga dib ugu soo laabtay oo aan uga baahanahay maanta inay isfariisiyaan isixiyaan guri isiyaan dago wax kalaba uma baahni meel aan saaraba ku dhigo wixii la siiyay waxba kamaayo hotel un baa qaatay halkaana hotel un baan deganay masiibada kolka igu dhacday halkana hotel un baan deganaa kolka waxaan uga baahanahay maadaama deegaankaygii aan joogo waxaan doonayaa in guri aan ku nasto arigii inta ii soo hadhay labada ii soo dhaasaa waxaan usoo dhiikar baa igu dhuftay sokor baa igu dhuftay dhaxdintii badneed kili markii horena kili iguma jirin eegana waan qalanahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay bay mahad u sugnaatay ka quwadda korontada ee dalka maadaama mas'uulka ah dhibaatada adiga kugu dhacday oo dhibaatada kugu dhacday ay koronto sababtay in iyaga maxaad kala kulantay waxaan kala kulmay si wanaagsan ayay warqadayga u qorqoreen way u gudbiyeen katibaha ugu dambeysay loo soo wada gudbiyay wixii alaab iga gubtay way ii gamadeen wax walba ii gamadeen waxaan doonayaa katibaha arrinkayga in laga dhaqaajiyo oo wixii la qaban karo la qabto hooyo qalbiga Allah ku qawajiyo marka koobaad haddaba hooyo Fardowso Xaaji Cali waxa ugu badan ee maanta baahi u qabtaa waa inay hesho hooy ay markaas ku nasato iyada iyo labada caruurta ay soo hadhay waxayna xukuumadda deegaanka ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba ay ka codsanaysaa in loo fidiyo gargaar ibni aadantinimo maadaama ay ku dhacday qadar ka timiday dhanka Rabbi Feerus Macalin warbaynta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga